soo ururiyey howlihii socday 4 maalmood oo la soo dhaafay aan idinkaga warrano guud ahaan isu imaatinka iyo waxqabadka ka dhashay. waxaan rabaa marka hore inaan fursaddan u qaato inaan u mahad celiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo lahaa abuuritaanka in la qabto shirka kusoo casuumay mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland, gogolna ku fidiyey inay Soomaalidii mar kale 20 sano tallaabadii uu qaaday wixii ka dhimanaa wax ka mid ah inuu maanta haddana u istaago oo qabanqaabadeeda iyo gogosheeda iyo dadaalkeeda galo. waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo oo aan bogaadiyo madaxdii kale ee ka soo qayb gashay shirka oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, partnerska Soomaaliya iyo Somaliland gacan saaxiibtinimo ku siiya waqtiga hadda la joogo inay socdaan oo maamuladooda iyo hay-adahoodu shaqeeyaan. haddana ay nagala joogaan safiirka Maraykanka iyo safiirka EU, iyagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo. waxaan rabaa in aad iyo aad wuxuu una bogaadiyo shaqada uu halkaan ka qabtay guddoomiyaha shirka mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo ah wasiir dibadeedka Djibouti. waa u bogaadinaynaa, waa u ducaynaynaa, abaal weyn ayaan uga haynaa hawshaan sida uu u daadiyey maalmihii aan fadhinay. waxaana rabin inaan ka tago mas-uuliyiinta ka socda Somaliland, cid dowladda ku jirta iyo cid aan ku jirinba, khubarada iyo isugu jira wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee soo aqbalay iyaguna sida annagu aan u soo aqbalnay gogosha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. saaxiibaday waa bogaadinayaan ayagana wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale iyo khubarada ka yimid dhinaca dowladda federaalka ayaha. intaa markaan uga baxo bogaadinta iyo mahadcelinta, waxaan rabaa inaan sheego arrinka dadka Soomaaliyeed oo 30 sano heshiis ku ahaa dowlad ay wada leeyihiin oo la yidhaahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya, mar dambena loogu magac bedelay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. runtii waxaan aaminsanahay ama ha joogaan dhulka Soomaaliyeed oo ay mas-uuliyaddeeda hayso hadda dowladda federaalka Soomaaliya, ama kan ay hayso dowladda Somaliland, dad badan oo Soomaaliyeed oo labadaas degaan jooga waddamada deriska, jooga qurbaha, inay aad iyo aad ugu murugaysan yihiin, uguna hamuun qabaan ra'yi khaasan ay ka qabaan waxa xaaladda labadii qaybood oo Soomaaliyeed oo midoobay xaaladooda ay ku dambayn doonto oo hadda iyaduna 30 sano maraysa. ma rabo inaan u gudbo kala maqnaan iyo isqaadasho, waa waxa shirkaan loo qabtay oo uu asaaska u yahay oo laga wada hadli doono oo aan ku tegi doono. laakiin taa ka hor shirkaani wuxuu u qabsoomay in loo gogol xaaro wada hadallo heer sara oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ka galaan xiriirka ka dhexeeya labadaas qaybood. halkan waxaan maanta ku soo gabagabaynay soo ururintii wada hadalladii labada dhinac dhex maray ee ay dhexdhexaadinaysay guddoominaysa
hogaaminaysay dowladda Jabuuti gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda walaalkeen Maxamuud Cali Yuusuf. qodobada ma rabo inaan idinku celiyo waa sida wasiir Maxamuud u sheegay intaasay ka koobnaayeen waa noo soo urureen waa isku waafaqnay waana la saxeexay hortiina. waxaa loo gudbi doonaa guddiyada oo wasiirku sheegay oo saddexda ah oo saddex arrimood oo muhiim ah daadihin doona ka wada hadli doona wixii hore looga soo qabtay dib ugu noqon doona jaangoyn doona qaabka ay horay ugu socon karaan arrimahaas iyo arrimo kaleba. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo Jabuuti dagaalka sokeeye ee Soomaaliya 91 oo sanadkii ugu horreeyay dagaal sokeeye ku jirnaa dadaalkii ay bilaabeen caawan aan hadlaynay wadaan. waxaan rabnaa haddaan dowladda federaalka ee Soomaaliya nahay shacabka ku nool deegaankaas iyo haddaan nahay Somaliland iyo shacabka deegaankaas ku noolba inaan u garanno walaal lama sida reer Jabuuti aad iyo aad uga mahad celinaynaa kaalinta wanaagsanimo oo ay bilowgiina bilaabeen iyagu ilaa iyo haddana ay wadaan. waxaan aaminsanahay sida wasiirku u sheegay inay uga faham roon yihiin cid kale oo kasta daadihinta isu jiijiidka isfahamsiinta iyo isu keenidda dadka Soomaaliyeed oo ku nool labadaas qaybood oo dhan. waxaan rajaynaynaa arrimahan hadda halkaan lagu xusay oo hordhaca u ah wadahadal dhaba oo looga xaajoodo xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland inay dokumentiga aan meeshaan ku saxeexnay iyo gabagabada shirki aan galnay dhowr maalmood oo soo